agaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta qaranka iyo xidhiidhka caalamiga ah ayaa maanta magaalada Boorama kaga qayb galay kulan muhiim ah oo dhinaca horumarinta gobolka Awdal ah isla markaana socon doona muddo 3 maalmood ah kaas oo ay ka qayb qaadanayeen isuduwayaasha laamaha dawladda ee heer gobol heer degmo madaxda jaamacadaha Camuud iyo Eelo mas'uuliyiin ka socotay NGO-yada wadaniga ah maayarka magaalada Baki iyo ka qayb galayaal kale kuwaas oo gabi ahaanba ku bahoobay gudida horumarinta gobolka Awdal maayarka magaalada Boorama Saleebaan Xasan Xadi ayaa ugu horeyntiiba soo dhaweeyay ka soo qayb galayaasha barasaabka gobolka Awdal Axmed Xadi Sidci oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay ahmiyadda kulankani leeyahay marka waxa samaysan doonaa oo aan filayaa inay noqoto aan ku dhiirigelinayaa inaan guddiga executive-kiina aan samaysan doono haddii la yiraahdo waxaan ka sugayaa insha Allah bidnal karim inaad ay nooga soo baxdo seminaar 3 maalmood halkee gobolka Awdal haddaan nahay halkee nugul waas adeega nugul sawaakii agaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta qaranka mudane Cabdirashiid Axmed Guuleed oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa yidhi 3 cisho socon doona 3 cisho waxa la doonayaa inaad aad u dhaajis gareysaan waqtigana ilaalisaan waxa la doonayaa inaad noqotaan guddi horumarineed goboladu way tartamayaan galiyay dibadda waxba ka doonan kartaan meel kasta wax ka raadsan kartaan gobol walba iskiiba guddigana kala lagu sameeyaa waa la midaynayaa guddiyada kale ee meelaha kala ka shaqeeyo dhan waxa way ka xubnaha ka mid ku leeyahay waa la midaynayaa shaqo badan baa markaa taala hadda airport dhisanaysaan waa idin taala hadda dhisanaysaan wax kale waa idin taala hadda wax qabsanaysaan waa idin taala intuu miiskiinu yaala waxa la qabsanaysaan si kastaba ha ahaatee kulanada noocan oo kale ah oo noqon doona kuwa kor loogu qaadayo tayada heerarka qorshaynta iyo gogol xaadka dhinaca horumarinta ee guud ahaan gobolada dalka oo dhan ayaa waxa maalgelisay hay'adda IOM waxaana fulinteeda kaalin ballaaran ka qaadanaysa jaamacadda Eelo ee magaalada Boorama Cabdulla Ali Yusuf Home Cable TV Boorama